ciyaartii ku kaliftay in Cisaam Shawaali uu dhaho waan iska dhaafay tibinta. بطلت التعليق ciyaartaas waxay ahayd kuwatar finalka Champions League sanadkii 2013 waxay dhexmartay Borussia Dortmund iyo kooxda Malaga ee reer Spanish. ciyaartii hore waxa lagu ciyaariyay Spain waxaana ku dhamaatay barbaro gool la'aan ah. qof walbana waxa uu si dhab ah u sugayay qaraxii kulanka soo laabashada ee garoonka Signal Iduna Park ee kooxda Borussia Dortmund. daqiiqadii 25aad Malaga ayaa ka yaabisay dadkii oo dhan iyadoo dhalisay goolkeedii ugu horeeyay. laakiin 15 daqiiqo kadib Marco Reus ayaa bixiyay baas sixir ah isagoona kubadda siiyay weeraryahanka reer Poland ee Robert Lewandowski. markii ciyaartu ku dhawaatay dhamaadka gaar ahaan daqiiqadii 82 ciyaaryahanka reer Portugal Eliseu ayaa dhaliyay goolkii labaad ee Malaga. Batista gol del Malaga Club Football. ciyaartaas waxaa laga maqlayay dhawaaqa faaliyaasha gool iyadoo dad badan aaminsanayeen in Dortmund riyadeeda ay halkaas ku soo dhamaatay. kaliya 4 daqiiqo ayaa ka harsan dhamaadka. Dortmundna waxay u baahnayeen 2 gool si ay u soo gudbaan. halkaas ayay sheekadu ka bilaabatay. daqiiqadii 91aad Marco Reus ayaa dhaliyay goolkii barbaraha. haddii aad fiiriso muuqaalka waxaad arkaysaa Reus oo si degdeg ah kubadda u soo qaadanaya si uu mar kale dib ugu bilaabo ciyaarta maadaama barbaraha uusan ku filnayn in ay gudbaan. waxa run ahaantii suurtageliyay in ay gudbaan ayaa ah wixii uu sameeyay Philippe Santana 2 daqiiqo kadib. Malaga Borussia gool markaas ayuu Cisaam Shawaali ku qeyliyay isagoo aan rumaysan karin wixii dhacay. waan iska daayay tibinta badaltu tacliiq. بطلت التعليق مش ممكن ماذا يحدث. garoonka waxaa ka dhacay waali iyo farxad aan la qiyaasi karin halka Shawaali uu ahaa mid gariiraya oo aan erey kale u heli karin inuu ku cabiro wixii dhacay.